gelinta ku dhaqan galayo sharcigaani inaan ka soo qayb galo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan bogaadinayaa wasaaradda cadaaladda, arrimaha dastuurka, baarlamaanka federaalka, dhammaan hay'adihii iyo khubradii ka shaqeeyay diyaarinta iyo meelmarinta sharcigan. Tallaabadan waxay muujinaysaa dadaalada loogu jiro dowlad dhiska dalka, waxaana muuqata inay socoto dib u cusboonaysiinta nidaamkeena cadaaladda. Sharcigan cusub la markiisu yahay 48 oo maanta bedelaya sharcigii hore ee soo baxay 1970kii oo ay u dhaxayso muddo 56 sano ahi. dee runtii wuxuu inoo tusayaa inaan waqtiga iyo maanta duruufo badan iyo wax badan oo ka bedelan ay u dhaxeeyaan oo aan lagu shaqayn karin. marka aad bay muhiim u tahay. waa muhiim in dalku yeesho shuruuc la jaan qaada duruufaha maanta iyadoo kor loo qaadayo ilaalinta xuquuqda daayarta. daayarta Soomaaliyeed waa jiilasha mustaqbalka dalkeena. waxaan rajaynaynaa in sharcigaani uu noqdo mid fursad siiya daayarta si loo ilaaliyo xuquuqdooda. ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gaarsiino dowlad goboleedyada dalka sharcigan inuu ka hirgalo iyo inaan wasaaradda cadaaladda iyo bahda cadaaladda aan si joogta ula shaqayno oo runtii aanu muxuu ahaa diyaar u ahaano sharcigan hirgelintiisa iyo ilaalinta daayarta. mar labaad waxaan bogaadinayaa wasaaradda arrimaha cadaaladda iyo arrimaha dastuurka. waxaana uga mahadcelinayaa hirgelinta sharcigan iyo munaasabadaha iyo marxaladaha adag oo tirada badan uu soo maray. aad iyo aad baan mar labaad ugu ammaanaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.